قد خاطب الرحمن فيها محمدا لغة بها القرآن أنزل ربنا من هنا سر الحكاية من هنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ودرسي أفراد كورسات أن كبرنيني كهذا كأفك عربيت waxaa ku soo dhawaateen darsigii ugu dambeeyay ee marxaladii tacaarufka waxbayaan idinka hor dhicin daawasho wacan. أختي نعيمة كيف حالك؟ Saara ayaa bilowday waxay dhahday ukhtii Naciima kayfa xaaluka walaashaydi Naciimay sidee tahay xaaladaada. الحمد لله بالعافية والهناء. kadib waxay ugu jawaabtay alxamdulilaahi ilaahay ayaa mahad iska leh bilcaafiyati walhanaa reereen iyo caafimaad ayaan ku sugnaa. أتيت إلى المدرسة باكرا ما الخبر وما الجديد؟ kadib waxay dhahday atayti ila almadrasati baakiran waxaad imaaday iskuulka waqti hore mal khabar wamal jadiid maxaa cusub maxaase jiro ii sheeg iga dabageysaasay ku dhahay. لقد قلت في نفسي أن أحل مسائل الأمس. marka waxay dhahday laqad qultu fii nafsii waxaan isdhahayoon aan soo gartay an axulla inaan xalliyo masaa'il alamsi yacni agseeskii shalay inaan xalliyo ayaan rabay saasaan usoo dhaqsaday ayay leedahay. لا تكذبين لصديقتك أنا أعرفك كما أعرف نفسي وهل هناك شيء آخر؟ قولي لي الحقيقة. markaas waxay ku lahday laa takdibiina lisadiiqatiki waxba been ha u sheegin saaxiibtaa ana acrifuki aniga waan ku garanayaa kama acrifu nafsii sida aan nafsadeeda u garanayo wahal hunaaka shay-un aakhar wax kale miyaa jiro ii sheeg. quulii liya alxaqiiqa xaqiiqada ii sheeg quulii lii igu dheh alxaqiiqa xaqiiqada oo waxaa weeyaan iga dabagey warka wey. أنت صديقتي وصاحبة سري ولا أكتمك عن الحقيقة. أنت صديقتي أدي waxaa tahay saaxiibadii wa saaxibatu sirri iyo saaxiibada aan sirta ku qarsado wax walba u sheego wala agtumki kaana qarin maayo can ilxaqiiqati xaqiiqada kaa qarin maayo. تساءلت أكثر مرة ما الذي أصابك؟ marka waxay dhahday tasaaltu akthara marra in ka badan hal mar ayaa waxaan isweydiiyey ma alladii asaabaki maxaa ku asiibay oo kugu dhacay waad isbedeshay maxaa kugu dhacay saasaan isweydiiyey. أظن أنني قد أصبت بالغرام والآن أخرج إلى الفناء ولقد حددت موعدا لصديق لي. marka way u jawaabtay waxay tiri adunnu annanii qad usibtu bilgharaam waxaan u maleynayaa in xoogaha ay asiibay bilgharaami jaceyl qad usibtu in laygu asiibay bilgharaami jaceyl xoogaa in ugu dhacay jaceyl ayaa u maleynayaa saasay leedahay. waa kaa gabdhuhu ilama wada sheekaystaan waxbay isla wadaagaanee wiil looma sheegay walaana ukhrujiya iminkan iska bax walaana hadda ukhruji iska bax ila alfanaa'i banaanka u bax walaqad xadadtu mawcidan ballan ayaan la yeeshay lisadiiqin lii saaxiibkay ayaan ballan la yeeshayo waxaa weeye xisadaha ka hor ayaan la ballamaya banaanka u baxsada. لماذا أخفيت عني؟ أوعديني أن لا تكتمين عن الذي بينكما. markaas waxaa limaada akhfayta canii haddaba maxaa iga qarisay saaxiibka limaada akhfayta canii maxaa iga qarisay awcidiinii ballan iga qaad allaa taktumiina can iladii baynakumaa allaa taktumiina inaadan iga qarin can iladii baynakumaa waxa idinka dhexeeyo inaadan iga qarin waxaa weeye ballan iga qaad ma saaxiibtino mase jaxeel waxa idinka dhexeeyo inaadan iga qarin ballan iga qaad. وعد علي الآن أخرجي حان وقت مجيئه. markaasay tiri wacdun calaya waa ballan walaana ukhruji hadda iska bax xaana waqti majii'ihi waxaa la gaaray waqtiga uu imaan lahay ee hadda iska bax. وداعا لكن حذاري من بعض الرجال إنهم كالذئاب. marka waxay la ballantay wadaacan bay ay ku dhahday wadaacan bay qofka markaa ka tegaysa wadaacan la dhahaa kadib waxay dardaaran ay u raacisay waxay tiri laakiin xadaari iska jir xadaari iska ilaali min bacdi rijaali innahum kadi'aab ragga gobol ka mida iska ilaali innahum ayagu kadi'aabi waa waraabo oo kale waa khiyaano badan yihiin iska ilaali. afwan laqad ta'akhartu qaliila laakin man hiya allatii kaanat macak. marka asagii imaado wuxuu yiri cafwan iga raali ahaw laqad ta'akhartu qaliilan wax yar ayaan soo dib dhaxay iga raali noqo saasuu yiri laakiin hase yeeshee man hiya allatii wa kumatii kaanat macaka adii kula joogtay gabadhi adii kula joogtay tahay saa man hiya allatii kaanat macaka waa kuma gabadhi kula joogta saa ayuu weydiiyey baab kale iyo waxyaabo kale isku furay. إنها صديقتي سارة. لما هذا السؤال؟ إياك عن مثل هذا. marka waxay tiri inaa sadiiqatii saara waa saaxiibadii saara lima hada su'aal maxaa su-aashan u keentay iyaaka waxaan kaaga digayaa can mithli hada su-aashan oo kale mar kale ay weydiin saasaa leeyahay can mithli maada marka intuu qoslu yiri can mithli maada
oo maxaa ka wadaa waxaasoo kale maxaa kala jeedaa saasuu u weydiiyo wuxuu la weydiinaya yani iyaaka can mithli hada su-aashaasuu la yaaban yahay marka waa ku dayaya لا تكدر صفائي هيا اجلس أنك تعرف ما يمكن عن فتاة غيورة mujadiyaa laga bedelo waxaa layidhi laa tukadir ha iga wasaqeen safaa iyo jawiga degan oo aan ku jiray hayajlis soo fadhiiso annaka adiga tacrifu waad garanaysaa maa yumkin waxa suurtagal ah oo ka suuroobi kara can fataatin qayuura gabar maseersan gabar haddii maseerto waxa ka suuroobi karaa adigu waad garanaysaa waxa ay ugu dhibine fadhiiso ayaa layidhi alxaqiiqatu annii sumtu min alakli washurbi mud ra'aytuki yaa naciima markaas beenii lagu yiqiin raggu iska galo wuxuu yidhi alxaqiiqa sida xaqiiqada jirta annii sumtu anu waan ka soomay min alakli washurbi cunitaan iyo cabitaan labadaba waa ka soomay yiri mud ra'aytuka markii aan ku arka laga soo bilaabo ilaa aada wax ma cuni kula ma qofaa noolaa karto waa beentiis yaa naciima markaasuu yidhi naciimay waa ka markii aan ku arkay cunno iyo cabitaanba waan ka soomay waa lagu fahmi doonaa marka waa ما أكذب الرجال إن أحبوك وما أغدرهم إن نالوا منيتهم markaas waxay tiri ma akdaba rijaal alla ragga maxaa ka been badan in axabuuka haddii ay ku jeclaadaan alla maxaa ka been badan wamaa aqdarahum maxaase ka dhagar badan wamaa aqdarahum sidoo kale maxaa ka dhagar badan in naalu haddii ay gaaraan munyatahum wixii ay doonayeen oo waxaa weeyaan ah inay macnaha gabadhaas hantaan waa kaa markay gaaraanna waa kaa xiisa dhacayaan inta kalena beenay kugu qufayaan wahal innisaau aqalu khiyaanatan minhum markaa su-aalu weydiiye wuxuu yidhi wahal innisaau aqalu khiyaanatan minhum haweenku miyay ka khiyaano yaryihin wahal innisaau haweenku aqalu khiyaanatan miyay khiyaano minhum ayay ka yaryihiin miyay ka khiyaano yaryihiin saasuu ku macnaha waxaan su-aashan oo kale waxaa lagu weydiiyaa tacajub ahaan camal waa ka لكنهن ضعيفات لو سألتك إلى أي حد تثق بي markaasi waxay tiri laakinahunna hase yeeshee khiyaanahday leeyihiin laakinahunna daciifaat waa iska tabardar yihiinoo waxaa waa khiyaanadooda waxaa waa tabardaridooda lagu dabooli karaa low sa-altuka haddaan ku weydiiyo ilaa ayi xaddin ilaa xadkee ayaa tathiqu bi igu kalsoon tahay biqadri hiqatiki bi ana uxibuk wa anta tuxibunii laakina asu'aal famaada bacda alxub markaas wuxuu yidhi biqadri hiqatika bi inta aad igu kalsoonta ayaan kugu kalsoonahay maxaa yeele ana uxibuka aan waa ku jecelahay wa anta tuxibunii adiguna waa i jeceshahay laakina su-aasha jirtaa waxay tahay famaada bacda alxubi jaceylka maxaa ka dambeyn doono taasaa isweydiinaya طبعا إلا الزواج وهل تخاف منه أم أنك لا تريد المجيء إلى أهلي اعلم جيدا بدون أهلي لا تفكر أبدا markaas waxay tiri dabcan ila sawaaj jacayl waxaa ka dambeeya guur uun wax kale maa jiro wahal takhaafu minhu miyaad ka baqaysaa am annaka laa turiidu almajii'a mise dooni maysid am annaka mase adigu laa turiidu dooni maysid almajii'a inaad u imaado ilaa ahli ahlkayga inaad u imaado iclam jayidan si fiican u ogow biduuni ahli ahlkayga la-aantiis laa tufakir abadan waxbaha ku fikirin saasay uu tiri waa u digtay okay laa bal yakaadu sabri an yanfad بعد التخرج إن شاء الله سنقيم حفلة زفاف لا مثيل لها markaasuu yiri laa may bal yakaadu sabri inta aan sabrayaba ayaaba waxay ku sigan tahay yanfad sabrkeyga inuu dhammaadayba ku sigan tahay bacda takharuji wuxuu yiri bacda takharuji qalinjibinta kadib insha allah hadduu ilaahay doono sanuqiimu waxaan qabsan doonaa xaflata zafaafin xaflad aroos oo laa mathiila lahaa wax loo dhigay isin jirin ayaan qabsan doonaa sheeko been uu galay marka waa kaa iyada u jawaabi بدأت أكاذيبك من جديد قم وابتعد عني حان وقت الحصة markaas waxay tiri bada'ta akaadiibik min jadiid beenahaaga ayaa dib u bilowday bada'ta waxaa bilowday akaadiibika beenahaaga lagugu yaqiinaya min jadiidin dib u bilowday qum istaag wabtacid igana fogow wabtacid canii iga fogow waxaana waqti alxisa waxaa la gaaray waqtiga xisada yaana iskula keen arkine bax iga fogow tiri waa ka أوافق هذا لكن لا تتركي عن رفيقك بعد الحصة إن شاء الله سنتجاذب الحديث في الطريق markaasuu yiri waafiqu hada waa kugu raaxsanataan waa kaa tegaa laakiin laa tatrukii laakiin haseeshe laa tatrukii ha ka tegin can rafiiqika saaxiibka ha ka tegin bacda alxisa xisadaha markay dhammaadaan ha iga tegin saasuu yiri insha allah haddii ilaahay doono sanatajaadab alxadiisa waxaan sheekada iskula wadaagi doonaa fi dariiqi wadada waa kaa su-aashaas waa ballanseeyo xisadaha markii ay dhammaadaan ha iga teginayo
سنرى يا هذا المجنون. iyadan markaas waxay tiri sanaraa yaa hada almajnuun waan arki doonaa midkan waalan oo jaceylka la waasheeyo. waa kaa dersigii afraad intaasuu ku egyahay. intii dersiga shanaad aan ku kulmi doono waxaa idinka tegayaa salaamullaahi calaykum waraxmatuhu wabarakaatu. أختي نعيمة، كيف حالك؟ الحمد لله بالعافية والهناء. أتيت إلى المدرسة باكرا، ما الخبر؟ وما الجديد؟ لقد قلت في نفسي أن أحل مسائل الأمس. لا تكذبين لصديقتك، أنا أعرفك كما أعرف نفسي، وهل هناك شيء آخر؟ قولي لي الحقيقة. أنت صديقتي وصاحبة سري، ولا أكتمك عن الحقيقة. تساءلت أكثر مرة، ما الذي أصابك؟ أظن أنني قد أصبت بالغرام، والآن أخرج إلى الفناء، ولقد حددت موعدا لصديق لي. لماذا أخفيت عني؟ أوعديني أن لا تكتمين عن الذي بينكما. وعد علي. الآن أخرج، حان وقت مجيئه. وداعا، لكن حذاري من بعض الرجال إنهم كالذئاب. عفوا لقد تأخرت قليلا، لكن من هي التي كانت معك؟ إنها صديقتي سارة. لما هذا السؤال؟ إياك عن مثل هذا. عن مثل ماذا؟ لا تكدر صفائي. هيا اجلس. أنك تعرف ما يمكن عن فتاة غيورة. الحقيقة أني صمت من الأكل والشرب منذ رأيتك يا نعيمة. ما أكذب الرجال إن أحبوك، وما أغدرهم إن نالوا منيتهم. وهل النساء أقل خيانة منهم؟ لكنهن ضعيفات. لو سألتك إلى أي حد تثق بي؟ بقدر ثقتك بي. أنا أحبك وأنت تحبني، لكن السؤال فماذا بعد الحب؟ طبعا إلا الزواج. وهل تخاف منه أم أنك لا تريد المجيء إلى أهلي؟ اعلم جيدا بدون أهلي لا تفكر أبدا. لا، بل يكاد صبري أن ينفذ. بعد التخرج إن شاء الله سنقيم حفلة زفاف لا مثيل لها. بدأت أكاذبك من جديد. قم وابتعد عني حان وقت الحصة. أوافق هذا، لكن لا تتركي عن رفيقك بعد الحصة. إن شاء الله سنتجاذب الحديث في الطريق. سنرى يا هذا المجنون.